dhegaystayaal iyo daawadayaal u soo dhawaada barnaamijka kororso waxaan barnaamijka maanta ku eegi doonaa xikmadda bisha Ramadaan iyo faa'iidooyinkeeda iyadoo aynu u kala qaadi doono dhowr qaybood balse qaybta ugu horeysa haddii aynu ku bilowno bisha barakeysan ee Ramadaan waa bisha Allah subhanahu wa ta'ala ku waajibiyay bulshooyinka muslimiinta in ay gutaan waajibka afxirashada ama soomida loo yaqaano waa hab cibaadeed oo ka kooban qaybo badan oo kala duwan isla markaana leh xikmad u gaar ah inta aan u gudbin xikmadda Ramadaan inta Allah inaga fahamsiiyay bal aynu si guud u eegno sida Allah subhanahu wa ta'ala u qaybiyay Ramadaanka bisha Ramadaan ama afxirashadu waa tiirka saddexaad ee tiirarka diinta Islaamka waana mid kamid ah astaamaha ama shacaa'irta ugu weyn ee Islaamka Allah subhanahu wa ta'ala waxa uu ku yiri suuratul baqara aayadda 183 kuwii iimaanka laga helayo waxa la idinku waajibiyay afxirashada Ramadaanka sida loogu waajibiyay dadyoowii idinka horeeyay waxa xaqiiqo ah in aad dhowrsanaan doontaan aayadda waxay isdul taagtay dhowr qodob oo ahmiyad gaar ah leh bilowga aayadda iyo dhamaadkeeda oo isku xiran marka aad u fiirsato waxa ku soo ifbaxaya ahmiyadda iyo in ay laga maarmaan tahay in la isku xiro bilowga iyo dhamaadka aayadda marka la dhaqan gelinayo haddii aanu jilcino Allah subhanahu wa ta'ala waxa uu ku bilaabay oo inoogu sheegay isaga oo u dhawaaqaya dadka iimaanka laga helay in uu ku waajibiyay afxirashada ama soonka kadibna waxa uu raaciyay in afxirashadu aysan inagu nagu koobneen oo dadyowgii inaga horeeyay sidaan oo kale loogu waajibiyay hase ahaatee bal daawade aynu eegno waxa halkan ka soo baxaya su'aalo oo uu qofku isweydiin karo kuwa oo ah ilaahayow maxaa afxirashada inoogu waajibisay ama muxuu yahay hadafka ka dambeeya in aynu afxiranno ama soonno su'aashaas waxa uu Allah uga jawaabay dhamaadka aayadda isagoo leh waxaad mudantiin ama xaqiiqo ah in alle aad ka cabsataan dhowrsanaataan erayada alle uu adeegsaday iyo ficilka carbeed ee uu adeegsanaya labadaba waxa ay ina siinayaan aragti fog iyo faham qoto dheer oo ku saabsan xikmadda alle uu u jeediyay ama u waajibiyay afxirashada bisha Ramadaan erayga at-taqwa oo kamid ah astaamaha ugu weyn ee lagu garto dadka xiriirka dhowla leh Allahooda ayuu Allah u adeegsaday in uu yahay hadafka ka dambeeya afxirashada Ramadaan ama soomida waa arin ugub ah aadna ahmiyad gaar ah u leh culimada muslimiinta siyaabo kala duwan ay u fasireen erayga at-taqwa marka loo eego siyaabooyin kala duwan ee Allah uga hadlay Quraanka hase ahaatee waxa su'aal ka taagan waa maxay taqwa waa maxay astaamaha qofka uu ku sifoogo taqwadu waa mowduuc aad u ballaaran halkaana laguma soo koobi karo falanqayntiisa hase ahaatee waxa aynu eegi doonaa inta kala xiriirta afxirashada iyo soomida bisha Ramadaan marka aan si guud u eegno taqwada la xiriirta Ramadaan waxa ku soo baxaya in taqwadu ay qayb ka tahay isu dhawaashiyaha adoonka iyo rabbigiisa dib u habeynta iyo boorka jafida xiriirka u dhaxeeya Allah iyo adoomadiisa muslimiinta ah taas oo la micno ah hadba qof kasta inta uu hagaajiyo xiriirka uu la leeyahay Allahiisa isaga oo qaadanaya talooyinkiisa ku aadan gudashada waajibaadka iyo habdhaqanka wanaagsan sidoo kale isaga oo qaadanaya wanaaga Allahiisa waa marka uu ka fogaanayo waxyaabaha aan ku habboonayn ee ay ka soo gaari karto dhibaatooyin adduun iyo mid aakhiro inta marka aan isla faahno su'aalaha aad isweydiin karto ayaa noqonaya sidee bay isugu xiriiraan bilowga aayadda iyo dhamaadkeeda ama waa maxay xiriirka ka dhaxeeya afxirashada Ramadaanka iyo hagaajinta xiriirka alle marka aan yara bidhaamino waxa jira faham qaldan oo ay in badan ka aaminsan yihiin waajibaadka alle inagu waajibiyay inaga oo aan helin sharaxaad nagu filan tusaale ahaan marka aad u fiirsato Ramadaanka iyo bulshooyinka muslimiinta ah in badan oo kamid ah Ramadaanku waxa uu u muuqdaa sida dhaqan ama caado oo kale taas oo ay dadku joogteeyaan iyadoo oo aan la helin xikmad ama sirta ka dambaysa taas waxa ay keentay in ay yaraato saameynta Ramadaanka inagu leeyahay marka loo eego dhaqan ahaan hase ahaatee si kastaba oo ay tahay
waxaa laga maarmaan ah in aynu fahanno xigmadda ka dambaysa ramadaanka iyo xiriirka ka dhexeeya hagaajinta xiriirka iyo soomidda bisha barakaysan ee ramadaan. daawadayaal iyo dhegaystayaal, intaan ayaan ku hakinaynaa xubintii kororso oo aan maanta ku soo qaadannay xigmadda iyo sirta ka dambaysa bisha barakaysan ee ramadaan. waxaa inoo xigi doonno qaybo kale oo la xiriira barnaamijkeennan kororso. dib u kulan dambe. nabadgelyo.